السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمانت idinku soo dhaweynaya mowduuc cusub kaasoo ah hababka habboon ee dadwadaagga iyo hore ayaynu u shaacinay bishii September, laakiin waxaan aad uga cudur daaranayaa inaan heleeli waayay inaan bishii September sameeyo dabcan arrimo mashquul xagga waxbarashada awgeed. marka mowduucan waxaan ka arki doonaa afar qaybood baynu kala qaadanaa insha Allah. afarta qaybood waxa ka mid ah qaybta koowaad oo qeexista dooda ama dadwadaagga, qaybta labaadna waa quraanka iyo dadwadaagga ku soo arooray, sidoo kale xadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee tusinaysa in dadwadaagga dooda wanaajino inagoo isticmaalana tactics iyo xirfadayna, sidoo kale waxyaabaha loo baahan yahay inuu la yimaado qofka dadwadaagga ka qayb qaadanaya, sidoo kalena waxyaabaha tahay inuu ka dheeraado qofka dadwadaagga ka qayb qaadanaya iyo dooda Soomaalida oo wax yar ka oran doono. marka koowaad aan ku bilownayo qeexida doodu asal ahaan waxaan oran karnaa waa iswadaarsi hadal ama ra'yi ama fikrad ku aadan mowduuc ama arrin muhiim ah si loo helo xal ama si loo fahmo halka ay wax ka qaldan. sidoo kale waxaan oran karnaa doodu waa dagaal af ahaaneed oo qofba qofka kale ku qancinayo in fikirkiisu ka saxan yahay ka kale. tusaale ahaan laba qof ayaa doodaya, aniga iyo adiga. anigu waxaan aaminsanahay fikirkaygu inuu ka saxan yahay, adigu waxaad aaminsantahay in fikirkaagu iga saxan yahay. dood taasaa la yiraahdaa marka labada qof ay soo hor fadhiistaan ay ka doodayaan waxa ay naaqishayaan ay ka wada hadlayaan. sidoo kale waa kii Iblis lahaa ana khayrun min, anaa ka khayr badan. وإذا قال رب الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. marka taasna waa dood kale iyaduna. sidoo kale doodaha quraanka iyaguna ku jira waxa kamid ah nabi la doodaya qoonkiisii suudiinta wanaagsan ee islaamka ugu soo hanuuniyo, sida suuratul Hud ay ku wada jiraan meel kaliya ay ku kulmayaan ilaa 5 nabi 4 nabi, nabiyullaahi Nuux, nabiyullaahi Hud, nabiyullaahi Shucayb iyo nabiyullaahi Muusa. marka ilaahay isagoo inoo dardaarmaya wuxuu yiri wajadilhum billati hiya ahsan, kula dood toogu wanaagsan. ilaahay sidoo kale wuxuu udcu ilaa sabiili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, kuwiyad tariiqa rabbiga bil hikma adoo xikmad adeegsanaya, wal maw'izati al hasana iyo waano wanaagsan. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، waxaad tiraahdaa adoomahayga waxaad dhahdaan ta u wanaagsan. faquluu lahu qawlan layyina, waxaad tiraahdaa Muuse Haaruun waxaad ku tiraahdaa lahu isaga Fircawn qawlan layyinan hadal dabacsan, lacalahu waxa mudan yahay yatadakkaru inuu yaantoobo oo yakhsha ama Allah ka cabsado. marka haddaan inta ku dhaafno quraanka ku soo arooray doodaha, xadiista iyaguna sidoo kale ku soo arooray waxa kamid ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kala doodayay Cutba ibn Rabiica. markuu la doodayay Cutba waa kii intuu yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam kula Maxamed u dhageyso, wuxuu doonay yiri markii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam kula faraqta ya Aba Waliid ma dhamaysatay. markuu uu dhahaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku akhriyay suuratu Fussilat. sidoo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri yasiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunfiru, bushaarey oo fudayliya oo culaysayna bushaarey oo kala eriyina oo hafidina dadka. al-kalimatu tayyiba sadaqa, kelmadda wanaagsan waa sadaqo. marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tusinayaa hadalka iyo habdhaqankeena inaan wanaajino. tabasumuka fi wajhi akhika sadaqa, wala cadinta walaalka waa sadaqa. maxay xiriir leeyihiin tan iyo dood aan ka hadlayna dib ayaynu ku arki doonaa insha Allah. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق الناس بها. حكمة وحوية بعيدة قفك مؤمنك halku ka helo isaga ugu xaq mudan. hadaba qofka doonaya inuu dood ka qayb qaato waxa muhiim ah inuu ogaado in kala gadisnaanta fikradeeda ay tahay hab uu Allah dadkan u abuuray.
oo kala gedisnaanta fikradeed maxaa sababa waxa sababa inta badan kala duwanaanshaha aqliga iyo hab fikirka qofka ee dadka dhexdooda deegaanka iyo dhaqanka ku xeeran qofka iyo sidoo kale aqoonta uu qofkaasi leeyahay intaasiba way xadidaan haddaba maxay tahay waxyaabaha looga baahan yahay in qofku la yimaado qofka dad wanaagga wuxuu la imanayaa wixii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam noo sheegay tabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa marka horeysa qofkii aada la doodaysay saa kaaga soo horbaxo ama stuudio ha noqoto ama meesha kalead ku doodaysayba ha noqotee oo dhoola cadinta ugu horeysa dhoola cadaysa gacanqaad ka horeeya waxa uu furaa quluubta waxyaabaha kale loo baahan yahay waxaa kamid in cilmi u yeesho horta qofku waxaan ka doodayo hadduu dhul ka hadlayo waa inuu taariikh iyo juqraafik ahaan iyo wixii dhul looga baahnaa oo dhan u yaqaano qofka la doodaysana waxa qurux badan magaciisa ugu yeedho iyo ama magac sharafeedkiisa sida sheekh hebel ama mudane wasiir mudane madaxweyne iyo wixii lamid ah waxa sidoo kale qurux badan uu muujiyo qofku dhegeysi haboon qofka haddaad dhegeysi haboon u muujiso isaguna waxaa laga yaabaa inuu taas lamida kuu sameeyo markaaga uu si fiican kuu dhegeysto isla markaana dooda laga gun gaadho oo ujeedadeedii la gaadho sidoo kale waxaa haboon inaad hadalkaaga ka bilowdo waxyaabaha isu waafaqsan tihiin sida haddaad dhul ka hadlaysaan wadan ka hadlaysaan waxaa jira kolley meelo aad isu waafaqsan tihiin meelahaad is leedahay waad isu waafaqsan tihiin hadalkaaga ka bilow oo ha ka bilaabna halka khilaafku yaallo waayo ilaahay tusaale wuxuu noo siiyey isagoo ka bilaabaya meelaha la isu waafaqsay qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedow liman ilardu dhulka yaa leh waman fiihaa iyo waxa ku sugan in kuntum taclamuuna haddaad idin kuwa garanaya sayaquuluuna lilah ilaahay baa labay ku odhan doonaan marka waxaad ka bilowda doodaada nebi maxamedow baa laleeyahay xaggee ka bilow waxyaabaha isu waafaqsan tihiin sidoo kale waxaa qurux badan inaad ku darto doodaada hadal tusaale ah hana badinin tusaalayaashaada ha badinin laana waxaa dhici karta inaad baydka ama mawduuca laga hadlayay aad ka baxdo waqtiguna kugu yaraado sidoo kale si uu waqtigu aad uga wada faa'iideysan karto waa inaad habaysaa fikirkaaga habee fikirkaaga si doodaada dhinaca isugu marto sidoo kale isla markaana u yeelato barbilow iyo barnamaad bedbedel codkaaga yaanu ahaanin mid level keliya haddaad qabow ku bilowdo qabow ha ku wadin haddaad hadalkooda ku bilowdo hadalkooda ku wadin lakin waxaa qurux badan hadal dhexdhexaada oo aan qaylan ahayn hoos gunuusna ahayn inaad ku bilowdo ama aad ku wado hadalkaaga sidoo kale waxaa qurux badan inaad iswaafajiso dhaqdhaqaaqa jirkaaga tusaale ahaan gacmaha markaad wax tilmaamayso iyo dareenka wejigeed meel walba bedbedelayso in aad iswaafajiso ayaa qurux badan waxaad ka hadlayso waa inaad xubin la lahaadaan haddii kale dadka ku daawanaya yacni wax badan uma sameynaysa macno oo maxaa la idhahdaa la qabsan maayaan halkaad ujeedo iyo waxaad ka hadlayso waxyaabaha tahay haddaba waxyaabaha tahay inuu ka dheeraado qofka dalwadaaga raba inuu ka qayb qaato waxaa kamid ah kow ha caydsamin hana cadhoonin oo haddaad caydsanto ama aada cadhooto dee mushkiladii halkii ay ka bilaabmaysaa doodina khalkhal ayaa ku imanaya islamarkaana ujeedada ay loo sameeyey dooda ayaa meesha ka baxaysa sidoo kale ha isticmaalin ereyada muujinaya ra'yigaaga gaarka ah sida ani waxay la tahay khibradeeda waxaan soo arkay iyo wixii lamid ah taasi oo tusinaysa kibir ama inaad iska kibrinayso ama aada isu tilmaamayso nin cilmi leh si qofka kale aada u jabsato amaba aada la gaadho marka haddaad intaa iska dayso qofka kale waxaad sameynaysaa si general ayaad ugu dhigaysaa tusaalehaan adoo adis ka hadlaya ayaa si general waxaa la arkay waxa muuqda waxa inoo cad yani waxaad ka dhigaysaa wax aama sida awgeed qofku kaama dareemay inaad uma arkaya inaad kibrinayso amaba aada iska weyneysiinayso ama wax isdheereysiinayso si aan point kuu lumin ha ka baxsan hana ka meermeerin su-aasha toos lagu weydiiyo su-aasha marka toos lagu weydiiyo waa inaad sideeda uga jawaabto haddaad sida siyaasiyiinta marka su-aal la weydiiyo jawaab aan meesha ahayn meeshadii ahayn ha keeni oo munaasib ku ahayn haddaba ugu dambeyntii eedaabta doodawadaaggu maaha farsamooyin uu qofku kaga baxsado ama kaga xoog bato qofka la doodaya balse waa akhlaaq iyo habab lagu kantaroolo habdhaqanka wanaagsan ee dadka dhexdiisa dadka kula dhaqmaysid kula doodaysid dad kula falgelaysid habdhaqankaas waxaa kamid ah raadinta xaqa doodu macno ma sameynaysa haddaan xaq la raadinin wax micnoo soo wadaana ma jiro dadkuna way ku kala fogaanayaan haddaanad xaq raadinin xaqu inuu qurux badaya labada qof ee doodayaan in xaq raadinayaan cidda dooda qabanaysaana xaq raadinayso saasaa qurux badan dooda soomaalida haddaba maxaa ka qaldan dooda soomaalida waxaa ka qaldan waxyaaba badan aynu sheegnay ayaa ka maqan sida in la is-ixtiraamo la isdhegeysto oo aan la iska dhexgelin
inaga waxaynu ku badan waxa weeyaan in hadalka ayaynu iska dhex galnaa qofkii oo doodii wada ama fikirkiisa ka hadlaya ayaa leeyahay sidaa maaha waa sidan waqti sii qofku markuu dhamaysto aad waqtigaaga lagu siiyo kaga jawaab wixii uu qofkaas yidhi ha ka dhex gelin hadalkana hana ka jeedin sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam u dhageystay ninka cutbo ahaa gaalka ahaa yidhi maxamedow dhageyso rasuulku sida fiican u dhageysto yidhi mayaa dhamaysatay saas leeg baa lagaga rabaa inaad ka dhex gelin rasuulku kama dhex gelin waa dhageystay calayhi salaatu wasalaam saas leeg baa laga rabaa inaad si fiican aada u dhageysato innaga dadda soomaali ahaaneed cay ayaa ka buuxda caydana waa waxyaabaha ka reeban qofka inaanu isticmaalin inta dooda lagu guda jiray iyo marka kaleba diiniyana ay tahay waxyaabaha xaaraanta ah intaasaan kusoo koobaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.